ka mid nahay macallimiinta dawladda iyadoo u shaqaynayo ku jiraan 3 bilood oo fasaxa ay wasaaraddu u soo dirtay macallin shaqada waad ka fasaxan tahay waxa go'ay mashruuci aad ku shaqaynaysay dawladda aniga mashruuc lama gelin macallin baan ahaa mashruuc baad ku shaqaynaysay RCF la dhaho mashruucaagii wuu go'ay marka macallin waxaad samaysaa imtixaan soo codso macallinku markuu imtixaan codsado oo imtixaan galo oo interview galo ay dhigaas buu qaataa wasaaradda waxbarashada siisa anigu imtixaan baan soo galay wasaaraddan soo maray qof walba ayaa marqaati ka ahaa imtixaankii baan galnay waxaan ku soo galnay Gahayr especially anigu waxaan u shaqeeyaa iskuulka dhagoolada waxaan soo qaatay tababar loo yaqaan sign language oo waqti badan aan ku bixinay qof kastana uu og yahay muddo markaan baranaynay wasaaraddu ay aqbashay waxa kale jirta madaxweyne waxaan leeyahay madaxweyne wasiir dawlaha weyna balamisay agostaan banaan baxnay waa u tagnay waxay nagu tiri September shaqo taga ay dhiyadiina haysta balantiina way naga baxday maalin waxa jirta la xisaabtamaayo aan ilaahay xaqiisa ay wax walba yaalaan madaxweyne maanta waxaanu ka cabanaynaa cadaalad darrana la ku sameeyay madaxweyne maanta cabashadan wasaaraddu kaliya kuma eka waxaanu ku cabanaynaa adiga waxay ahayd maalin adag maalintii naloo sheegay inaan shaqada isaga baxno waxa imtixaanka galay ardaydii form 4 ka ahaa ee anigu aan wax baray waxay ka qalin jabin hal arday muu dhicin tayadarra miiga muuqanayso maxaa shaqadeeda iga saaray waxaan rabaa inaan ka hadlo madaxweyne waxaan leeyahay jeestadii 1997 aad dhigaysay ayaa wadnaa maanta sababtiina la kaga dhigay ku yiri ka baxa shaqadana waxna qaban karaa maahan macani hadii qalinka dhig la yiraahdo talow muxuu qaadanayaa dawladnimaan ku jira iyo dawladnimada hadii la iga saaro dulna ceebaan ku biiraa xagee baan aadaynaa talow waxaan weydiinayaa madaxweyne waad ogtahay waxa ay macallimadu tahay muddaad ku soo shaqaynaysay macallin nin walba oo maanta madaxweyne halkani ka ah wuxuu soo noqday macallin sideedoo macallinku waa hogaamiyaha dhabta ah ee waddanka ka jira nolosheedii maanaan banaan bixin waxaana soo martay wasaaradda waxbarashada xil ay macallimiintu $100 ku shaqaynahayeen maantana waxay taagan yihiin heer ay 300 ku shaqaynayaan iyo wax yar haddii la yiraahdo macallin shaqadaadii ka bax mushaar ma lihid waxba ma tihid waa ceeb maanta macallimiintana waxaa naga mid ah macallimiin imtixaanka ilaaliyeen ardayda imtixaanka galaysa waxaa ka mid ah ardadanadii sideen ardaygii aan wax baray imtixaan ula galaa sideen ardaygii aan wax baray maanta imtixaankiisa aan saxayo aan la yiraahdo soo bilow mana anfacayso waxaan u sheegayaa madaxweyne arinteena ha ka aamusin meelaad uga aamusna ma joogno halkan waxaan ku sidnaa macallimiin aad ugu sharaf siisay waxa sharafta u siisana waa qiimahooda iyo sharaftooda iyo ciideyntooda waxaan naga mid ah macallimiin dawladii nabadda ahayd ee siyaad bare ee xalana training ka qaatay macallinka 40 jirka ama 50 jirka ah khibradda iyo cilmiga aan ka waayay 25 jirka maxaa haabinahayo waxaan u sheegayaa macallimiinta dhan iyo wasaaradda waxbarashada waana la dulmiyay dulmiguna wuu kala duwanaaye waxay maraysaa in macallimiinta la dulmiyo aadaan uga xumahay afkeena ma aamusaayo banaan baxeena ma joogsanaayo meel aan ku haraynana ma lahan wasiiradda markii dambe ay noo diiday inaan shaqada ku laabano maamulayaasheena waxay naga soo saareen shaqada waxayna nagu dhaheen wax xaquuq ma lihidin banaanka u baxa taasina waxna qabata ma lahan bishan September mushaar ma lihin afcadana lagu sheegay maxaa shaqada ligaga saaray absence iguma dhicin arday ma dhibaataynin maxaan ku mutaystay waa u baahan inaan ogaado waxa kale wasaaraddu u sheegaya macallimiin dadka ku jiraaba shaqada waa naga saarteen laakiin anigu sidaa kuma istaagayno ilaa cadaaladeena ummadda islaamka oo dhan ay ogaato waan taagnaan doonaa waxaan aad uga xumahay wasiiradeen inta nala kulantay inay nagu balan furtay mar labaad baan u sheegayaa maalin baa jirta la xisaabinayo oo aad waxba qaadan doonin horta marka koowaad macallinkan waxaan ahay shahaadadan uu siiyeen mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wasiirkeena wasiir faarax halqabsiga sanadkan la siinay 2 sano ka hor inay heedaan u maleynaya shaqa la'aanta la wareeray haddii aan wax qalday astaghfirullaah alcadiim laakiin 2 sano ka hor inay heedaan jeclaa maalinta halqabsigu wuxuu ahaa mahadsanid macallin madaxweynahan ku leeyahay oo wasiirkan ku leeyahay annaga wasaaradda waxbarashada markaan hadda nahay mandihin dad wasaaradooda ceeb ka sheeganayo cabasha un baan tirsanayna oo keliya waxaa kaloo run ah shahaada sharafkan aniga la siiyey dadkii soo qoray waxaa ka mid ahaa kormeer cabdalle nin la yidhaahdo ka mid yahay wax loogu daro maaqaan iska dhaaf heebe agaasimad waxaa jirta xabiibe la yidhaahdo ee hadda dadka maxaan ku idhahdaa noogu dhawaaqay inaan nasanno
كم إذا دتك يسوق قدبي مدحوينها يسوق قدبي كوربيرك معلميته أنسحيي مع الحبيب وحلو قدر ما قال الله يوق عدالة بي وسوع شو ما صدق الله ما سرد معنا الله كل يوم وأنواع بالهنا لكن أنا عبشتنا ما ساميسو إن عندنا وعك شكله كاس عد معلن معها وزارة دينا وعبشتنا أنا وحيته ما دام شلي أنا لما موسي مدحوينها وزيرك هديتنا سيان مع النصي سيكو هذين بينه ددويرك وحلوسي جاي فيه من نغنينه وتكون ما هتستينه لكن وعن ربنا إن هتسي شرف له نور له كلمه معلميته أنا يقول كلية معها معلم هذا واحد وجه جاي كم مغضب عياله حاس كلية معها ولبا إلى ما بقول داري هالمر سكتك ما أنفعه معلم قبله في شيء يسوى معلمه ورانا هذا كده ترتاحتها أنا هذا إذا كان ديار أنواع وكذا وعن ديار أنواع وزارة برشاد دكار وسود دال وقصة المقرصة ولو وحيد مين هذانا اسكيل انت صوص من الراء عند غبرتين كلين ما ان قصار والله ذيك الوا قصرت ومد الصوماليات way قصرت sababtoo waxa leenahay anaga macallimiin waxa ku jirta xirfado dhagool wax ku baray oo ilaahay wooge oo hadda ani aan ka barto iskoolaadka dhagoolaadka liina dhagool qofkii wax baray qofkii duurku ku diray ilaahay baan kugu dhaari soo wax laga roon yahay ma war ilaahay baa idinku dhaari dadka qaladka galaayo wasaaradda anu ma qabo wasiir faarax qaladka mid galaayo ma madaxweyneyna mid galaayo ma عدينا مرقاتي شاهدوني كين السيانا كمرقاتي وزير مركز توصلت ويا هذا وحو لنحقلا وصورنا لقلا سيان وين الله ومعلن وأنو نجيب وعاود سنة وجبنا مركا إلى ما يقول داري دتك غلط عن كتر سنين ويوجين ما بعدين وزير كينا عيب ما قبت مدعويننا عيب ما قبته هكون نقضانه أنا هلا حلي عريتنا ومعلمين أنا عمان مشي يقرنوا